geesta kalena alfanaan cawaale aadan daheeye ayaa warbaahinta maanta oo jimcaha gelikii dambe kula hadlay hotel Grand Hadi ee magaalada Hargeysa isagoo u mahad celiyay dhammaan taageerayaashiisa kala duwan ee ka soo qayb galay bandhig faneedkii xalay uu ku qabtay magaalada Hargeysa isagoo sheegay roob lixaad oo magaalada Hargeysa ka da'ayay haddana taageerayaashiisa ay ka soo qayb galeen bandhig faneedkaasi isagoo ka hadlayna waxa uu yiri galabta oo maalin jimcaha waxaan ku suganahay magaalada Hargeysa gaar ahaan hotelka weyn ee Grand Hadi runtii wax kale ugu soo fadhiisan waxaan soo fadhiistay inaan si kal iyo laab ah si sharaf leh si qaali ah si qiimo agteeda ku leh aan ugu mahad celiyo dhammaan shacabweynaha ku nool Soomaaliland gaar ahaan shacabka reer Hargeysa oo runtii si goobnimo leh oo sharaf leh oo qaali ah magaalada iga soo dhaweysay inta aan magaalada joogeen si sharaf leh wallahi haysa oo aan kulli abaal iyo ixtiraam ugu hayo dadkuna de goobnimadooda horey baan u aqaanay maantana waa mid labaad ay soo kordhiyeen inta haddaan halka uga imaado xalay toole show qurux badan oo runtii sharaf badan ayaan magaalada Hargeysa ku sameynay aniga iyo fanaaniinteedii qaaliga ahaa Yuro Maxamed Cabdi iyo Khadra Cabdi Sinimo iyo waliba Maxamed Alta oo saxophone ka noo tumiyay al-ustaad Maxamed Alta iyo walaalkay Ilyas Idris Ayna dhammaan qabaqaabiyaashii waan ugu mahad celinayaa soo qabaqaabiyay oo waxaan leeyahay wad mahadsantii boqolkiiba boqol waxaan uga mahad celinayaa sponsorskii barnaamijka sponsor gareeyay dhammaantood baan uga mahad celinayaa waxaan uga mahad celinayaa TV-yadii soo joogay ee hawshaas nala galay waxa kale oo uga mahad celinayaa oo marnaba ilaaweyn dadkii sharafta badnaa ee barnaamijkaas qayb libax ka qaatay hadday habla ahaayeen iyo hadday nama ahaayeenba waan uga mahad celinayaa inta hadda halka kaga imaado xalay toole tamakii habeen markaan yaabay roobkii kala istaagi waayay ayaan de aniga qaraar qaatay sanisi maahe waan tagay sidii ma ku tagay de ma fiiranayn roobka inta la eegay da'aya dadka inay soo jiirayaan runtii Hargeysa waxaan u bixiyay Hargeysadii roobku hakin waay waan uga mahad celinayaa Hargeysa roobka hakin waay wax kale oo hakinay inuu jiro ma maleeyo waxaan leeyahay Hargeysa iyo fankayga iskuma cusba martina iskuma Hargeysa waa Hargeysa awaalna waa awaal ninku ma ku jiro unba la xigta kulli anagu wax fiima dhigin hatta laba falaayar oo been abuur ah oo midna $30 ku qoran yahay midna $15 ku qoran hatta waan arkay labadoo been abuur baxayeen kan ku dhigan $15 buu ahaa ka oo masax ahaa de kulli qof jira unba lagu mashquulaaday waxaan aaminsanahay qofku markuu jiro ma lagu mashquulaa de magaaladiina waan joogaayo cid magaranaysaa aan ka qaadanay go ahead inaan magaalada ku dhigo ma jirto magaaladana waxaan ku dhigi jiray iyadoon cidba go ahead weydiisan yaan ku dhigi jiray imikana waxaan ku dhigay iyadoon cidba go ahead weydiisan waxaan u soo noqon doonaa iyadoon cidba go ahead weydiisan Hargeysa waa Hargeysa awaalna waa awaal Asma Maxamed Abukar Badacas 24 TV magaalada Hargeysa